magaalada muqdisho mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa soo rogay amar ah in gawaarida xamuulka ah laga mamnuucay jidadka caasimadda laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 8 fiidnimo kadib weeraradii toddobaadkan ka dhacay magaalada oo ay ku dhinteen dad ku dhow 30 qof weeraradaasi kadib ayaa xukuumadda Soomaaliya waxay sheegtay in xilalkii ay ka qaaday taliyihii ciidamada booliiska iyo taliyihii hay'adda nabad sugidda Soomaaliya si markaasi loola yimaado waxay ku tilmaameen isla xisaabtan haddaba si aanu u qiimayno xaaladda ammaanka ee Soomaaliya waxaanu waraysi la yeelanay madaxa macadka daraasaadka Heritage Cabdirashiid Xaashi wariyahayaga Cali Nuur Salaad ayaa weydiiyay in la bedelo madaxda iyo in istaraatiijiyad lala yimaado tee muhiim ah labadu waa muhiim oo haddaan istaraatiiji jirin dee qofku wuxuu noqonayaa qof mugdi ku guureynaya haddii dad shaqadii yaqaan aan la keenin ama shaqadii ka bixi kara la keenin ayaduna dee istaraatiijigu waxay noqonaysaa riya isku bedelaysaa dadkii xataa shaqadii yaqaan ama ka bixi kara haddii tabar lahayn ishaaraan iyo is-eedeyn iyo markaas ninkii fadhiisoonaha looga kici karo oo eedda lagu rogi karo waa dhici karta in lagu rogo marka waxaan isleenahay sacsiyaadaan badan oo shaqaalaha dowladda oo xilalka muhiimka la bedelayo haddii cilmi lagu saleeyo intii daraasad la sameeyay oo la ogaaday labadaas nin oo hadda shaqada laga bixiyay iyo kuwii hore iscasilay oo sidaan marka ku hayno iscasilaada keena la yiri laakiin lagu qorxinayo waa iscasileen haddii la hubiyay inay iyagu shaqada gaabiyaan dee macnaha waa cilmi ay ku salaysan iyo daraasana dee waa loo qaateen haddii markii dee qarax dhacay oo shacabka soo jeesteen oo la yaaban yahay oo xagee salaad iska qabsan la yiri kuwan bal dadka lagu qabooshiyo la yirina dee aqli maahan qof kastoo shaqada laga bedelana 6 bilood bay ku qaadataa qofkii bedelay inuu shaqada la qabsado dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in xilka qaadista taliyayaasha ay tahay isla xisaabtanku ma leeyahay qaab kale oo aan ahayn in shaqada laga ceeriyo dadka mas'uuliyiinta markii hore ay dadkan magacaabayeen bay xisaabta khaldeen ma hadday khalkhaleen waxyaabahaas dhammaan la isweydiin karaa laakiin waxa uu muuqdo waxa weeye magaalada inaysan ammaan haysan oo sida hadda nin shalay idaacadaha ka hadlay uu sheegay in wadadii Maka al-Mukarrama la isku haysto marna soo banal ka soo galayo marna naasaha bilowtu iyo dalxiiska harsoon ka soo galayo taas marka runtii mas'uuliyaduhuna taliyaasha kama bilowdaan askariga jidka taageerna mas'uuliyad baa saaran ninka soo magacaabay madaxweynahana mas'uuliyad baa saaran golaha wasiiradana mas'uuliyad baa saaran laakiin nuxurka Soomaaliya amnigeedu wuxuu ku xiran yahay shabaabku waxay diyaar u yihiin inay dhintaan madax marka suudad qaba oo inay noolaadaan raba oo inay sii joogaan raba haddii is hayaan dee sidaan ba hadba qolol loogu rogayaa marka dhammaan waxa ku soo xigi doonta golaha wasiirada ayaga la soo halal xisaabtan